sheekadina maanta waxay ku saabsan tahay filimkan. bilowga filimku waxaan arkaynaa qoys u soo guuriya guri cusub. gurigaas oo ay ku heleen lacag qiimo yar, waana guryihii hore oo qadiinka ah. gabadhooda eel kuma qanacsano inay halkan imaado, waayo sababtoo ah ma raban inay kasoo tagto asxaabteeda. waxaan arkaynaa markay gudaha soo galaan, gabadhooda eel waxay eegaysaa hareeraha, dhan wilba ay ka fiirinaysaa guriga. ugu dambeyn waxay arkaysaa albaab oo kasoo muuqanaya horteeda, albaabkaas oo ah qayb guriga ka tirsan. waxaan arkaynaa ayadii aabaheed iyo walaalkeeda soo raacaya oo qaybtii albaabka soo galaya. kadibkeeda aabaheed way ka noqoneen iyo hooyadada iyada ayaa kusoo horeyso. si kadis ayay albaabka ugu xirmiya. waxay garaacaysaa albaabka. qoyskiina waxay bilaabayaan inay raadiyaan furayaasha lagu furo lahay albaabka. eel waxay dareemaysaa in si kadis ah qof ugu soo dhawaanayo. baqaysa albaabka waxay ugu raacaysaa si xoog ah. furihii ugu dambeynta waa la helaya oo albaabka ayaa laga furaya. ayadoo careysan ayaa kasoo bixisa albaabkii. waxay soo aadaysaa qolkeedii. subaxda dambe waxaan arkaynaa eel hooyada u sheegaysa inay aadayso shaqo, ayna ka taxdirta walaalkeeda ka yar. waxaan arkaynaa eel oo la hadlaysa asxaabteeda ayaa walaalkeeda u keenaya madax geesa leh. waxay weydiinaysaa meesha oo kasoo qaaday madaxan. walaalkeeda wuxuu u sheegaya inuu kasoo qaado qol, isku raaceen dhankii qolkii. waxay qolka ku arkaysaa alaab qadiin ah. waxay ka arkaysaa muusigii waagi hore la isticmaali jiray, way daaraysaa. isla marka qof ayaa kasoo dhaxarlaya oo tirintaasuu dhahaya 1 2 3 ilaa 7 ayuu gelsanaya. eel walaalkeed waxay u sheegaysaa inuu meeshaana iskaga tago oona seexda. arkina eel oo daawanaysa tvgii. leerka guriga oo dhan ayaa baxayo oo gurigii mugda ayuu noqonay. eel waxay wicisaa hooyadeeda, waxay u sheegaysaa inuu ka tagay korontadii. hooyadeeda waxay u sheegaysaa inuu fuyuuska ka baxay, waa inay tagtaa jikada ayna soo daartaa leerka. kadib eel hooyadeed waxay u sheegaysaa inuu guriga dhan mugdo is yahay, aynu wax arkin. waxay leedahay jaranjarada waxay ka kooban tahay ilaa 10 ayay ka kooban tahay. eel way soo bixisaa, waxay soo aadaysaa dhanka jaranjaradii. kadibna waxay bilaabaysaa xisaab. ugu dambeyn cod hoose ayay waxay maqlaysaa ayadoo maraysa 9, kadibna dhahayo 10. eel meesha ayay ku siixisa. kadib hooyadii ayaa taleefonka kasoo wicisa, maadaama laga qabo waa taleefonka hooyadeeda. kadib waxay samaynayaan ayada iyo seegeeda, waxay kusoo laabanayaan guriga. kadib guriga markay imaadaan, gabadhooda eel way ka maqan tahay. kadibna waxay samaynayaan meel walba ayay ka raadinayaan guriga banaankiisa iyo gudaha. marka ay ka waayaan, waxay samaynayaan booliiska ayay la wadaaganayaan arrinta. kadibna waxay u sheegeen inay ka maqan tahay gabadhooda weyn. kadibna booliiskii wuxuu bilaabayaa baaritaan. kadibna waxaa laga raadinayaa meel walba oo guriga agaarihiisa. kadib waxay samaynaysaa sawirada gabadheeda ayay waxay ku dhejinaysaa darbiyada. kadib ayada iyo ninkeeda iska soo laabaneen guriga ayay iska imaanayaan. kadibna way iska oonaysaa ayada waxay samaysaa ayay garawaanaysa. kadib waxay ogaanaysaa gabadheeda eel in ay wax ka qaldeen. maalinka dambe waxay bilaabaysaa guriga dhexdiisa inay xog ay ka raadiso oo ku saabsan gabadheeda. ugu dambeyn darbiga waxay ka arkaysaa calaamad. kadib darbiga ayay ku iftiinsa oo waxay arkaysaa sawiro badan oo ka muuqda darbiga. kadib askarta waxay u sheegaysaa inay ka raadiyaan xog dhammaystiran oo lagu qanci karo. kadib askartii baaris ayay bilaabeen. ugu dambeyn waxay u sheegeen waxay ayada ay ku qancaan. kadib waxay dhahayaan gurigan yaad ka iibsateen, waayo sababta gurigan waa qadiimi, waa guryihii hore. kadib wuxuu u sheegayaa eel aabaheeda inuu gurigan uu ku iibsaday lacag raqiis ah, oona ka iibsaday xaraash, meelaha wax lagu xaraasho oo ka iibsaday ayuu u sheegaya. kadib askariga eel hooyadeed wuxuu u sheegay jirista, wuxuu leeyahay waa inaad maskaxdaada aad dejisaa. gabadhaada waxaa laga yaabaa inay macnaha asxaabteeda ay ku maqan tahay, waayo sababtoo ah dhowr mar ayay isku dayday inay meeshan ay ka baxsato. marka kadibna waxaa laga yaabaa gabadheeda dhowr maalmood kadib inay ayada ay soo wacdo. kadib intaas kadib booliiska waa baxaya. kadib habeenada ka mid ah, jirista wiilkeeda yariiska ayaa baqaya. kadibna waxay seexinaysaa sariirteeda. ayadoo sariirteeda dul fadhida, waxay dareemaysaa inuu qof la joogo. kadibna marka ay fikirto, waxay dareemaysaa inuu cod oo ka soo baxayo dhinaca kushiinka, oon yahay codkaas gabadheeda. kadib marka ay soo dabakacdo codka, kadib wuxuu keenayaa qolkii maqaasiinka. kadib maalinkii dambe, jirista waxay go'aan ku gaaraysaa inay ogaato gurigan cidda xaraashiisay. waxay isku dayday cidda guriga iska leh inay xog ka hesho, laakiin way garan waysay qofka dhabta ah ee guriga iska leh. kadib imaatinka guriga jiristii, waxay dareentay dhammaan albaabadaha iyo daaqadaha guriga ay ku yaalliin calaamado yaab leh. kadibna dhammaantooda waxay ka qaadaysaa sawiro
taasoo saaxiibkeeda u sheegayso inay tani u eg tahay qof kale carabkiisa. Waxay baaraysaa sawiradii ay u keentay saaxiibteeda, kadibna saaxiibteeda waxay u sheegaysaa inay sawiradan ay weli wax ka fahmin laakiin ay si fiican usii baari doonto. kadibna dirista meesha ayay iskaga soo tegaysaa maadaama ay ku qanci waayso baarista ay samaysay saaxiibteeda. kadib dirista waxay samaynaysaa wiilkeeda ayay kuleedka ka soo wadaysaa oo waxay keenaysaa xaafadda. kadibna waxay isticmaalaysaa internetka oo waxay damcaysaa inay internet ku qorto. kadib waxay soo xasuusinaysaa hadalka oo u sheegay wiilkeeda kaasoo ahay inta la waana eel in ay isticmaalaysay muusikada la duuwaayo. kadibna way soo bixisaa muusikada ayay daaraysaa. kadibna waxay arkaysaa wiilkeeda oo ka kacay meesha oo kadibna tirinta codka afkiisa ku tirinayo. kadibna way dambanaysaa oo waxay u soo ordaysaa xaggiisa. kadibna wiilkeeda wuxuu samaynaya waxaasoo dhan war iyo waayo kama hayo. kadib dirista baqtan saa'id ah ayaa galaysa. kadib waxay fiirinaysaa sawirka dulsooran derbiga kaasoo ah ninkii hore ugu noolaay meeshaani oo ah macalin xisaabiye. sawirka gadaashiisa waxaa ku qoran qoraalkaasoo ah luuqad kale lagu qoray. intaasi kadib diristu waxay samaynaysaa macalinka ayay ka baaraysaa internetka. kadibna waxay ogaanaysaa inay macalinkii iyo qoyskiisa ay u soo wareegeen gurigan ay ku noolaayeen. kadib maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa la waanayaa si kedis ah macalinka iyo qoyskiisa meel ay ka baxeen ayaa la waanayaa. kadib wuxuu ka dameeyey leerka waxayna soo aadaysaa dhankii albaabkii. kadib albaabka ayay damcaysaa in ay furto, albaabka uu furmo waana. kadib waxay ilaalinaysaa furihiina way waanaysaa. kadib isha ayay meesha saaraysaa oo waxay arkaysaa il meesha kasoo muuqato. kadibna waa nixaysaa oo gadaal ayay soo boodaysaa. kadib waxa uu imaanaya wiilkeeda kaasoo dhahaya hooyo maxaad meesha ka qabanaysaa. kadibna waxay u sheegaysaa inay asiga ilaalinaysay. kadibna wuxuu leeyahay waa qaylinaysa maxaa kugu dhacay. markaas bay leedahay ma aan qaylinaynin. kadib wuxuu u sheegayaa in qolkiisa uu wax ka qaldan yahay. kadib waxaa imaanaysa korontadii. kadibna waxaan arkaynaa dirista oo soo galaysa albaabka ayay furaysaa. kadibna albaabka ayaa si kedis ah ugu xirmaayo. kadib wiilkeeda waxay u sheegaysaa inuu albaabka ka furo. wiilkeena wuu awoodi waayna inuu albaabka furo. kadibna wuxuu soo qaadanaya miis asagoo damcaya inuu miiskaas oo fuulo. kadib diristii waxay dareemaysaa inuu qof meeshaani oo joogo. kadibna way baqaysaa naxtin ayay dareemaysaa. kadib taleefankeeda ayaa meesha aaga dhacaya. kadib odageeda ayaa meesha imaanaya albaabka ka furaya. kadibna waxay u sheegaysaa gurigan inay wax ay ka qaldayiin. sidoo kale waxay u sheegaysaa qoyskii gurigan deganaayay sidai gabadheeda loo waayo oo kale in ayakana loogu waayo gurigan dhexdiisa oona lalaaya meel ay ka baxeen. kadib markay u sheegta asagoo kasoo xanaaqaa kasoo tagaa. kadibna wuxuu arkaa tan fara badan oo habayaan. kadibna waa iskaga tiraya. hadda maalintii xigtay dirista waxay aaday kuliyadda xisaabeed aad u weyn sababtoo ah ninka guriga lahaa ayaa tani bari jiray. halkaas ayuu kula kulantay macalin xisaabeed kaasoo oo dirista tusay qaacidada xisaabta isagoo oo eegay waxa uu sheegay dirista in qaacidadani ay aad u daaweyn tahay. waxaana la yidhi waxaa loo adeegsan in albaabada adduunka kale lagu furo. haddaba markii ay weydiiyey macalinkii guriga markaas ay ugu yidhi haa waan maqlay. si lama filaan ah ayaa u luntay. ilaa maanta lama helin cibaankeeda laakiin inantiisa weli way nooshahay. hadda si toos ah halkan ayay dirista ugu timid gurigeed iyo qaacidadii iyo macalinkii wax walba u sheegay. ninkeeda ayay u sheegtay laakiin ninkeeda oo waxyaalahaas ka carooday wuxuu xanaaq. haddana wuxuu aaday goobta bandhigga. halkaas ayuu cd-gii u danbeeyey ka bilaabay inuu jabiyo taas oo qaacidada lagu qoray. hadda isla markii uu bilaabay weerarka sabaxan baa ka soo baxaya iyo ciyaaryahanka furan ee muusiga laftiisa. duubista waxay bilaabanaysaa ciyaarta taasoo oo gabadha diristii eel oo tirinaysa codka muusiga oo haysa tirin ayaa waxaa arkaya walaalkeeda ka yar. markuu arkay aad buu u naxay wuu qayliyey. waxay damashay duubistii oo ay dareeshay wiilkeed. kadib diristii wiilkeeda wuxuu u sheegayaa inuu arkay walaashiisa eel oo halkaani joogta. kadibna sidaa darteed oo qayliy.
kadib aabihiisa marka uu soo baxo eel ma arkaya, laakiin wuxuu soo arkayaa taleefankeeda. kadib hooyadiis ayaa intaa kadib Dulista way shakinaysaa. Markaas kadib Dulista waxay go'aan ku gaaraysaa in ay raadiso inanta macalinta. inanta macalinkan meesha ay joogto ma garanayso, laakiin sidaa darteed waxay go'aan ku gaaraysaa meel walba iyo qaab walba u heli karto in ay la kulanto inantaasi, waayo waxay leedahay wax walba ayada ay ka ogaan kara ama ayada ay fahansiin karto. kadib inanta ay u imaanaysaa Bobby isla marka ay halkaani timaado. Dulista waxay weydiisay waxa ku saabsan Lifton, taas oo ay u sheegayso taasi Lifton dhab ahaantii waa mid ka mid ah 7 boqor ee cadaabta, kaas oo la yiraahdo Shaydaan. intaa kadib iyaduna waxay u sheegtay qaacidooyinkan. maalin maalmaha ka mid ah xaaladda walaalkiisii lama filaan ah ayay aad u xumaatay. kadibna waxaa la geeyey meel walba, qof walba loo geeyna xaaladiisa wuu sheegi waa meesha ay ka qaldan tahay ama waxyaalaha asiga haysto. kadibna meel walba ayaa lagula tacaalay, qof walba ayaa loo geeyey. kadib maalinkii dambe dad walba qof kasta wuxuu kor taagay gacmihiisa isagoo leh ma fahmin inay dhibaatada ka jirto asiga. taasi aawadeed aabihii wuu xanaaqay. waxay go'aansatay inay caawimo ka qaadato Shaydaanka, oo hadda wuxuu helay furihii kaasoo lagu furo albaabka naarta, taas oo aabihii ka furay albaabkii naarta si uu Shaydaanku halkaas uga soo galo adduunkeena. laakiin wuu qiyaameeyey. Shaydaankii baa yimid halkii uu aabihii caawi lahay. reerkaygii oo dhan buu naarta geeyey. waan ka badbaaday dhibaatadan, oo hadda waxaan rumaysanahay inuu Ilaahay keliya caawin karo. gurigaasna aad baan u necbahay, sababtoo ah ma aha oo keliya guriga, laakiin guriga oo dhan waa albaabka naarta. Shaydaanku meel kasta wuu ka imaan karaa adduunkeena. guriga dhexdiisa Dulistii ninkeeda wuxuu u sameeyey calaamadaas uu ku ogaaday dhammaan. wuxuu kaloo ogaaday Shaydaanka khatarta ah. hadda Dulista waxay dib ugu soo laabatay gurigeeda, yaa ah ilaaliyaha albaabka naarta. kadib markii la dhageystay taas, Dulistii hadda si buuxda loo qanciyey. waa kan albaabka naarta. imaatanka Shaydaanku waxay bilaabaysaa inay daarto tirinta codka muusiga ayadoo daaraysa ciyaartooyga muusiga. isla marka ay tani dhacdo, albaabka cadaabta iskiisa u furmaa. kadib wiilka Dulista wuxuu sameynayaa inuu imaado qolkii, kadibna wuxuu u soo degayaa qaybta hoose asigoo maqlaya cod. kadibna wuxuu bilaabaya tirinta codka. hooyadiis ayay soo maqlayso, kadibna meesha uu joogo ay u soo cararaysaa. kadibna way soo cararaysaa oo waxay ka raadinaysaa meel walbo. nasiib wanaag ugu dambeyntii way helaysaa. wuxuu u muuqday mid aad daciif u ah. kadibna way soo qaadeen oo waxay keeneen qolkiisa jiifka. kadibna waxay arkeen calaamad u eg sidii xidiga oo xabadkiisa ku taal, kaasoo run ahaantii ahay waardiya halista badnaa ee cadaabta ee Shaydaanka. kadibna waxay qeyle ka maqlaysaa dhanka qolka ninkeedii. kadib markay soo cararto, ninkeedu waxay u imaanaysaa tirinta codka ahayo. kadibna markuu dhammeey wuxuu u sheegayaa in uu imaaday Shaydaankii. kadibna albaabka ayaa si kedis xoog ugu furmaya. kadib waxaa ka soo baxaya Shaydaankii. Shaydaanku wuxuu u ekaay mid daciif ah, sidoo kale wuxuu lahay geeso sida aragoo kale ay u ekaay. kadib Dulista way ka baqaysaa, kadibna waxay ka gelaysaa miiska hoostiisa. kadib wuu ku soo cararaya. kadibna meesha dhan ayaa eega soo cararaysa oo waxay soo gelaysaa qolkii qaybta hoose. jaranjarada ayay soo gelaysaa ayadoo asiga ay ka baqayso. jaranjartan aad bay u dheereed. kadibna waxay imaanaysaa albaab dambe, albaabkaas ay ka soo baxayso. kadibna waxay soo gelaysaa qol mugdi ah oo cabsi badan. kadib waxay meesha ku arkaysaa dad fara badan oo saf ku jira. dadkaasi waxaa ka mid ah gabadheedii El. kadib markay aragtay gabadheeda El, aad bay u naxaysaa oo gabadheeda ayay ku boodaysaa. kadibna meesha ay iskaga soo baxaysaa. inta ay soo socoto waxaa ka dhacaya tooshkii. kadib waxay ku soo laabanaysaa gurigeeda. kadib Dulista waxay sameynaysaa ninkeeda ayay u sheegaysaa waxyaalihii oo dhan oo meesha oo ka dhacay. kadibna ayada aad ay u farxaysaa maadaama gabadheeda ay ka soo baxaysay meesha halista badneed. way farxaysaa.
dirista ninkeeda waxay u sheegaysaa inay meeshaan iskaga fogaadaan, waayo meeshaan lama sii joogi karo ayay leedahay. Si kedis ay waxay ku furaysaa albaabka, markaas ay arkaysa tooshka ninkeeda oo meesha yaal. Kadibna dirista wax ma soo xasuusinayso. dirista wiilkeeda iyo gabadheeda iyo ninkeeda waxba ma samaynayaan oo meesha keliya ay iska taagayeen. diristan maskaxdeeda wax dhan ma xasuusato oo waxay malaysaa inay meeshaan ay ka bixi karto. kadibna waxay xasuusinaysaa inay meeshaan ay ka bixi karin oo shaydaankii meeshaan uu ku xayiray. kadibna dirista waxay ogaanaysaa sida reerkii hore loo waayay in ay kale loo waayi doono. filimkan meesha ayuu ku dhammaanaya. fadlan haddaa ka hesha videogan like, share, comment, subscribe intaba noo taabso asxaab fara badan gaaro. waa ku mahadsantahay daawasho.